wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo calankaagu ka nabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo calankaagu ka nabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado عقليقيو جراتكيو درشد عدونيو ضمير عافي ما تقوى عقليقيو جراتكيو درشد عدونيو ضمير عافي ما تقوى بولشي هاي كوعانكي وعلى مساركي عدة دورة ليلي مسؤول عمامضو عدة دورة ليلي مسؤول عمامضو تلبين عمكا هي عمكا وعلى مساركي عدة دورة ليلي مسؤول عمامضو عدة دورة ليلي مسؤول عمامضو تلدين عمكا هي عمكا wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo calankaagu ka nabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado دستوريو الشارع ويان العود كاغسين لين علانيو دستوريو الشارع ويان العود كاغسين لين عرددا حلكاروا أمدي هاي عقيديو عذو الدولة ديديو إسيو كراميو عذو الدولة ديديو إسيو كراميو كراميو أمدي هاي عقيديو عذو الدولة ديديو
عسيو كراميو عذوب دولة ديديو عسيو كراميو عسيو كراميو 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 ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو calankaagu kaadabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado waxaan ku suganahay xarunta guriga shaqaalaha waana meesha ay ka codeyn doonaan murashaxiinta intooda badan iyo madaxweynahaba hadda waxaan ku suganahay safka xagiisa dambe dad badan ayaa ku jira safkuna aad buu u dheer yahay bal waxaan kelmado weydiin doonaa qaar ka mid ah dadka codkooda u diyaarka ah inay dhiibtaan ee safkani ku jira adeer dad magacaaga ku bilowdo magacayga markaan ku bilaabo axmed cabdilaahi suldaan baa lidhaa axmed cabdilaahi suldaan sidee baad u aragtaa maanta inaad saf dheer ku jirto oo aad codkaaga dhiibanayso bal dareenkaaga noo muuji waxaan kuu muujinayaa waxaan u arkaa farxad weyn oo dareenkeyga aan ku muujinayo ummaddii Soomaaliland oo maanta halkaa ku dhigto wada ku jirta ayaan ku faraxsanahay waa doorashadii imisaad aad ka qayb qaadatay codayso doorashadii saddexaad oo Soomaaliland aan ka qayb galo weeyaan doorashada maxaad ka rajaynaysaa waxaan ka rajaynayaa basbas iyo barwaaqo iyo guul baan ka rajaynayaa waad mahadsan tahay walaalo magacaaga ku bilaabaya sidee baad u aragtaa codbixinta maanta bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa xamse maxamed cabdilaahi hadiyaan ka hadlo dareenkayga maanta wallahi aad iyo aad buu u kacsan yahay waxaan leeyahay Soomaaliland waxana wax la idin ka bartay inaan nabadda ilaalisaan Soomaaliland hore u soconay aad iyo aad ugu dareenkaaga sidee والله runtii dareenkayga waa dareen runtii farxad aan magaranaysaa dadka markaan arkay dadkii halkan isugu wada yimaaday oo hadafkoodu yahay in ay odeeyaan runtii wallahi waa dareen aad fiican soo aragto dadku magaranaysaa waxa ku jira nabad waxa weeyeen runtii waxa la soo saaka xilliga soo kacday saaka salaadii subax baan soo tukaday kadibna marka safka waxa soo gashay iyadoo aan la furin goobta ka hor iyo halkaa horan taagnaabo waxaan salaabada ku horeysa noqonaysa hadana waxaan arkuniyadii laga sii horeey qaar baa u sii seexday dad ba ka soo horeeyo safka ka soo qabsaday dad baa sii horeeyay daawadayaal sidaas wiilkaasi dhalinyarada uu sheegay dadku xilli aad u hore ayay yimaadeen halkan oo xitaa aan xarumahaba la furin oo codbixintii aan la diyaarinin dadku ilaa salaadii subax kadib ayay yimaadeen si ay goor hore codkooda u dhiibtaan goobo kale aan soo maray daawadayaal sidaas oo kale ayaa safafku u dheeraayeen dadkuna ay diyaar ugu ahaayeen inay codkooda dhiibtaan jawga guud ee guddiga doorashooyinku sida ay sheegeenna waxa ay sheegeen in xaaladda nabadgelyada iyo xaaladda codbixintu dhammaantoodba ay u socdaan sidii loogu talagalay ilaa 1600 oo goobood oo guud ahaan Soomaalilandna ay diyaar u yihiin dadku codkooda inay ka dhiibtaan daawadayaal guud ahaan waxaa saaka si rasmi ah u bilaabantay codayntii hadda waxaan ku suganahay xarunta guriga shaqaalaha oo dad badan ay saf ugu jiraan inay codeeyaan hadda waxay la taagan afhayeenkii guddiga doorashooyinka Soomaaliland Commissioner Saciid Cali Muuse waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo xaaladda guud ee codbixinta iyo sida ay u bilaabantay iyo ilaa hadda xogta ay hayaan bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaan ku faraxsanahay haddaan nahay guddiga doorashooyinka qaranka in maanta waqtigan aynu joogno oo toddobadii in yar ay dhaaftay in dhammaan goobihiiba waddanka dhammaantood intaan warkooda helayno ay wada furmeen oo ay shaqaynayaan magaaladan Hargeysa oo imika iyaduna ay furantay guriga shaqaalaha aynu joogno waxaa hadda ka bilaabatay in dadkii markaasi ay codkooda dhiibtaan oo ay sanduuqa ku ridaan saaka waxaan soo maray goobo fara badan in 6 ilaa 7 oo ahayd waqtigii loo diyaar garoobayay ma wada mari karin magaalada Hargeysa waayo waa 200 oo goobood ay ku dhowdahay magaalada gudaheedu marka intii aan soo maray saaka diyaar garowga aad buu u fiicnaa goobta tan ayaan waxaan ku beegmay waqtigii iyada ay markaasi furmaysay alxamdulillah iyaduna waa taa aad arkaysaa adiguba waana furantay waana bilaabatay codbixintii waddanka dhan 1642 goobood ayay ka bilaabatay saaka codbixintii saaka markaan ka imid xafiiska isgaarsiinta ama communicationka ku yaala xarunta komishanka doorashooyinka qaranka waxa warbixintii u dambeysay la siiyay waxay ahayd in dhammaan ay soo direen intooda badna goobihii xalay waxaan noogu dambeysay markaan ka rawaxnay 12kii in boqolkiiba 9 iyo 9 goobihii ay diyaar ahaayeen
oo markaasi ay gaadheen diyaarna u yihiin aroorta inay furaan saaka oo subaxiya alxamdulillahi rabbil caalamiin waana furmeen wax caqabado ilaa hadda soo gaarna ma jiraan abadan alxamdulillahi rabbil caalamiin waanu ku faanaynaa maanta waxaanu ku faraxsannahay haddaanu nahay reer Somaliland iyo weliba guddiga doorashooyinka qaranku in maanta muddo dheer baynu soo jiitamaynay oo soo gurguranaynay oo marna diiwaangelin sameynaynay marna kaadh qaybinaynay marna ay doorasho dibino ka dhacaysay maanta waa maalin ka duwan maalmahaasi waxay uga duwan tahay wixii loo soo socday intaasoo dhan ee kharashka faraha badan loo bixiyey ayaynu maanta midhaheedii aragnaa alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaanu ku faraxsannahay weliba aanu rajaynaynaa in lixda maqribnimo ee dhammaan goobuhu ay si nabadgelyo ah oo alxamdulillahi rabbil caalamiin aan dhibaato ka dhicin ay ka dhacaan waana intii aanu intaa u soo halgamaynay oo inuu dadka shicibka iyo xukuumadda iyo komishanka iyo beesha caalamka iyaduna inaga taageerisay dhammaantayo aynu raadinaynay inaynu maalinta soo gaadhno marka ay bilaabato haddaan safafka la taagnayn qofka safka taagan hadday 2 yihiin safkaasi waa dhamaanaya hadday ku qaadanayso ilaa caawa 12 habeenimo wixii safka taagan 6 markay gaadho waa la xirayaa laakiin dad kale to safka ma soo qabsanayaan looma ogola qofku saasoo markaas codkiisa ku dhiibanaya loogu ogolaanaya Allah subhanahu wa ta'ala inuu mahadnaqina marka hore kulligeenba weynaynu ilaahay u mahadnaqnaa ilaahayna soo gaarsiiyey inaynu maanta oo isniina si nabadgelya si amniya si qarankanu uu tusayo adduunweynaha indhihiisa uu tusayo wuxuu qarankanu qabsaday 25 sanadood ee la soo dhaafay maanta waa milestone waa taariikhi waxaynu gelaynaa taariikhda Somaliland waa maalin ku suntanaan doonta inaynu gallo doorasho hufan hanaan wanaagsan leh laga daacad yahay hal qof iyo hal cod ah xor ah xalaal ah qofna aan la jujuubayn qofna aanu lahayn badi qofna aan laga badsanayn waa midaynu ilaahay ugu mahadnaqayno waxa inoo cadeynaa safafka dhaadheer ee lagu jiro ee 300 mitir ama 200 mitir safka lagu jiro ee xalay 3 habeenimo loo soo kacay 2 habeenimo safka loo seexday waliba xalay oo qabow ahayd oo dhacaysay dadka u dul qaatay codbixiyaashana waanu mahadnaqaynaa waa xaq dastuuriya oo kulligeen wada sugaya oo aynu wada leenahay inaynu codayno oo xaqeena dastuuriga aynu gudano oo aynu u codayno 3 murashax ee inaga mudan ixtiraamka ee inaga mudan ciisaynta 3 madaxweyne mar hadday isu soo taageen waa 3 madaxweyne inaynu maanta kala saarno oo aynu ku kala saarno farteeno aan shaki lahayn farteeno maanta aan muran lahayn farteeno hal cod iyo hal qof waa midaynu ilaahay ugu mahadnaqayno komishanka doorashooyinku wuxuu u mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay socodkii dheeraayanu soo marnay hadday af tahay hadday gacan tahay hadday jeeb tahay dhammaan ummadda Somaliland oo dhammaan u mahadnaqaynaa iyagoo aananu kala saarsaarayn oo mid kasta u hayno ixtiraam iyo qadarin aan u hayno khaas ahaan intiinani hor taagan ee saxaafadda oon idin leeyahay waad gudateen waad fuliseen waajibaadkii qaranna laydinka baahnaa waad ku mahadsantihiin hadiyo habeen baad u taagnaydeen cadceed baad u taagnaydeen si aad warkayga ugu gudbisaan caalamka daafaha adduunka oo dhan waanad ku mahadsantihiin taa waanu idinka mahadnaqaynaa oo cadceedda iyo roobka iyo jiid iyo riixid iyo jiilis iyo cadaadin waxaasoo dhan sharaf ayaad ku mudateen muwaadiniin xaqaad tihiin muwaadiniin wanaagsan baad tihiin ku wada sidaa waanu idinku mahadnaqaynaa hadday waxayna soo dhex mareen intaynu shaqadan ku soo dhex jirnay naga raalli ahaada raaligelin baanu idinka siinaynaa waddanka maanta 1642 goobood buu ka furan yahay codbixintii oo dadkii ay codbixintii u dareereen safaf dhaadheer ku jiraan dul qaadanayaan is ixtiraamayaan
isqadarinayaan ay doonayaan inay guutaan xaqoodii dastuuriga ahaa ee ahaa ama ha lagu doorto ama wax dooro walaalayaal ilaahay baynu u mahadnaqaynaa waxaanaannu idinka codsanaynaa saxaafadda iyo codbixiyaasha iyo dadweynaha somalilan oo dhan in safafka la ixtiraamo socodkooda la ilaaliyo buuq lagu samayn cid loo soo dirin qashqashaadda xisbiyada la tixgeliyo la soo dhoweeyo la ciseeyo la sharfo waayo waa astaan aynu leenahay oo aynu kaga hormarnay afrika dhammaan guud ahaanba ma dhacdo afrika 3 murashaxoo halkaa keligood socda oo doorashadii ku ridaya ma dhacdo tanay ka dhacday adduunku wuu arkaya ilaahayna wuuna arkaya waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inay tanu inoo horseedo inaynu noqonno hormoodkii afrika xagga horumarka waad mahadsantihiin wadharaartii ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo calankaagu kaadhabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado calan iyo dastuuriyo dashaadaadi weeyaan ad codkaaga siin lahayn calan iyo dastuuriyo dashaadaadi weeyaan ad codkaaga siin lahayn curadada xilkaa raba yahay caqiibiyo cudud dowladeediyo isiyo karaamiyo cudud dowladeediyo isiyo karaamiyo karaamiyo ummad yahay caqiibiyo dowladeediyo isiyo karaamiyo cudud dowladeediyo isiyo karaamiyo daawadayaal weli waxaa socota codbixintii doorashada somalilan waxaana xaruntan aanu ku sugannahay ka codeeyey madaxweynaha somalilan ee xilka ka sii degaya axmed maxamed siilaanyo iyo sidoo kale murashaxiinta xisbiyada ucid kulmiye iyo wadani injineer faysal cali waraabe muuse biixi cabdi iyo sidoo kale cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro mid kastaana markii uu codkiisa dhiibtay waxa uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay dareenkiisa iyo rajada doorashada uu ka qabo waxaana ka mid ahaa hadalladoodii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan salaan u dirayaa shacbiga somalilan meel kastoo ay joogaan waxaan ku hambalyaynayaa dhammaantood inay saaka u dareereen inay dhiibtaan codkooda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan anigoo ka mida muwaadiniinta somalilan ahna musharax madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxaan ku faraxsanahay inaan ka qayb galay anigoo muwaadin ah codaynta doorashada oo hadda soo codeeyey khadkii aan ka codeeyeyna waa kaa fartayda ka muuqda waxaan u rajaynayaa shacbiga somalilan inay si nabadgelyaah iyagoo ixtiraamaya shuruucda aynu dhigannay ciidanka ammaankana la shaqaynaya inay si nabadgelyaah ku codayno waxaan shacbiga leeyahay nabad ka codeeya muwaadin kastaa xisbigu doono ha u codeeyo waxaynu ku tartamaynaa tartan xor ah oo xalaala insha allahu waxaan rajaynayaa inay guuli noogu dhammaato waxaan aad ugu rajo weynahay in doorashadani magac weyn u keento somalilan inay noqoto doorashadii ictiraafka somalilan haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baan u salaamaya dhammaan shacbiga saxaafaddana waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dareenkaaga nooga warran siduu yahay maanta waad codaysay doorashadii madaxtooyada somalilan musharaxiintaad ka mid tahay bal dareenkaaga ka warran hay'adda shaqaalahaad ka codaysay bismi illaahi raxmaan raxiim dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan
الحمد لله إلهي ما مهله إله النبضة إيه هرمركها إيه عضينتها النبضة إيه نجارسية ما مهله إن شاء الله هو ناقنا وين وقنا ما ضوتها إيه النبض الحين مكتب بينهم الحين عسبين هالدون صدق مرشح أحمد بصبح كي صبح أنا والله شغالين أنا أدبروك الصورين عود كنتوا بدون هلا يدلك ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو calankaagu kaanabay codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu إلهي ما هذله إله ما تدلكين النبض قب يوناك هرمرين دور شاء إنه ما حسب دورنا إله أنت هذا إن السيء ما هذله إلهي واحد كرجينا إنه وناك إنه قلنا ما ينبضه إلهي واحد كرجينا إنه قصد دور شاء خير له ودلك هرمريسه وناك نور سيده أنا إنه واحد روحاني لوكين إلهي برتاك بريانا ما تعرف ضدك واحد لقى بسرعة فرحة يا درين كسرة cod bixiyaashu ay ku dooranayaan madaxda dalka maanta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadka codaynayana aad iyo aad ayaan u hambaleynayaa waxaan ku hambaleynayaa dulqaadka safka ay taagan yihiin cadceedda si ay u soo kala laheen dhallinyarada shaqaynaysa waan hambaleynayaa da'da yar ciidamada qalabka sida ee kala duwan ee ilaa xuduudaha nabadda inoo xidhay ee inoo ilaalinaya goobaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa qolada miidiyaha oo maanta aad iyo aad u aabulan oo si wadannimo u shaqaynaysa iyagana waa mahadnaqaya soo koob Soomaaliland oo si wada mahadnaqaysa ilaahayna wanaag bay ka doonaysaa insha Allah waxaanu dooran doonaa madaxweyne cusub saddex murashaxabaas ayaa jooga kii soo baxa waa hambalyeynaa anna waxaan isleeyahay dhammaan codka u badan waad heli doontaa insha Allah intiina waxaan ka rajaynayaa inay codaysaan waraaqad yar in turtaan intiina taagan ma yaridine kuway maqlayeen waxa la codka igu rooraada haddii alla yiraahdo dalkuna nabad buu ahaanaya warwarna ma jiro ragga sharaxanina waa rag wada odayaala dalka danaynaya aan loo baqaynin aad iyo aad baa u mahadsantihiin insha Allah guul baan noo rajaynayaa qaraarka mudane gudoomiye dareenkaaga ka waran codkaaga baad dhiibatay bal ka waran sida hawlu socdaan alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil caalamiin alxamdulillaah rabbil ilaahay baan mahadnaqaynaa subxaanahu wa ta'aala ilaahay noo hirgeliya doorashada ololihi nabadda nagu socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa nabad nagu dhamaataa ilaa hadda si fiican bay nagu socotaa magacii baan soo celinay Soomaaliland ee xusba kulmiye baabiiyay ee guurtidu baabiisay ee wakiiladu baabiiyeen markay ka kici waayeen kuraasidii ee waqti dhaafeen ee adduunka inaga jeesaday haddana hadday soo noqdaan kuwaas hadduu cira soo noqdo oo ahaa wakiilada Muuse Biixo ka soo jeeda kulmiyo dalku dhabarku sii jeedinaya annagu noo soo jeedinay wajiga insha Allah ta'ala ilaahayna noo soo jeedinaya marka dadka ay ku jirtaa inay isnidaamiyaan haddii dadku isnidaamiyaan si idib u maraan dadku u soconaya laakiin hadday isku murgaan ma soconayso intaas ma weeyo basar guduhu fiican oo konfartiinaga soo shaqeeyay moogta ما إيجن لكن ما بدنا قول كتابك قبل هذا هذا عظام لنا إن شاء الله تعالى ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو calankaagu kaanabay codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو calankaagu kaanabay codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu codka iyo fartaadu caqligiyo garaadkiyo garashada cudooniyo damiir caafimaad qaba caqligiyo garaadkiyo garashada cudooniyo damiir caafimaad qaba
bulshayahay kucaankii bulshayahay kucaankii waa caleemasaarkii cidda dooranayda mas-uul loo cumaamado cidda dooranayda mas-uul loo cumaamado taladeenna caamka ahey caamka caamka waa caleemasaarkii cidda dooranayda mas-uul loo cumaamado cidda dooranayda mas-uul loo cumaamado taladeenna caamka ahey caamka caamka madaxweynaha iyo marwada koowaad waxay ka codeeyeen codkoodii ka dhiibteen xarunta shaqaalaha oo aynu hadda ku sugannahay warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgala kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladaba waxaanu idinku bogaadinaynaa sida xilkasnimada leh dal jacaylka leh muwaadinimada leh eed howlaha u gudanaysaan labada musharaxa guuleysta ayaa qarankan maamuli doona madaxweyne Siinaayana talada qaranka ku wareejin doona aad u mahadsantii wadarati ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo wadarati ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo calankaagu ka nabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado dasturiyo dashaadaadi weeyaan ad codkaaga siin lahayn calan iyo dasturiyo dashaadaadi weeyaan ad codkaaga siin lahayn curadada xilkaa raba yahay caqiibiyo cudud dawladeediyo isiyo karaamiyo cudud dawladeediyo isiyo karaamiyo isiyo karaamiyo 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 yahay caqiibiyo كاهن بار تجري كويتنا فتح الله يبارك أمدي هاي عقيبيو عذود دولة ديديو إسيو كراميو عذود دولة ديديو إسيو كراميو إسيو كراميو 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 أمدي هاي عقيبيو ugu dambeyntiina waxaa dareenkooda muujiyay qaar ka mid ah dadka codkooda dhiibtay iyo kuwa safafka ku jiray kuwaasoo iyaguna muujiyay rajada doorashada ay ka qabaan iyo xilliyada ay doorashada u soo kaceen iyagoo la hadlaya telefishinka Home Cable waxaa hadalkoodii ka mid ahaa magacayda Awraar Saalax baa la yidhi Awraar Saalax guri khadalaalka soo istaagtay defoodkii galay ku soo baxna ma yaanidu waageeni baan ahay ما وحنا ليش بلادنا ودقنا لحنا وانكمقنا dadka qurbiinka ah u yimaad daraadad doorashada daraadad banu yimid amkay waxa weeyaan inaan dalka ogaado doorashada ka dhacaysa deewana ku soo riday dalkana waxaan nabadgelyada hayno sanamaynaa ma haysanaa anagu Yurban ka nimid
xoolaha iyo doolarka iyo adduunyada bannaanka taale ciidanku ilaalinayo dadku ilaalinayo kuma haysano dadkan badda u dhoofayaana ha iska dayeen dalkooda ha aamineen annagoo annaga ku soo noqono markii horena dan baan nakaxaysan imakana waan ku soo noqono waanu degannahay doorashadana waxaan filayay kii ilaahay uu qoro inuu helo dhinacyadana cadow badan bayna ka xigeen sidaa heegan ha u ahaadeen dadkuna heegana la ahaado axmed maxamuud muuse axmed maxamuud muuse ma soo odaysay haa si wanaagsan oo iyadoo kuyuugii dadka cadceed ay karaahaysanayaan si wanaagsan ii sii daayeen niyad ah adiga waa lagu sii daayay kuyuuga maad gelin haa si wanaagsan oo farxtin bay igu sii daayeen calaamad iyaasa awgeed ama disability marka waqti badan kugumay qaadan waad soo codayso waad soo baxday bal dareenkaaga ka war gudihiina way ii soo kaceen dumar habla iyo rag baa way ii shaqeeyaan deetana si wanaagsan baan axsaabta qofkan doonay ugu soo riday marka waad ku faraxsantahay inaad codayso si wanaagsan waa doorashadii u soo codayso golo wakiila ilaa golo madaxweyne loo soo wada codeeyay si wanaagsan ummadda inay ugu wada dhawaato faraxtin lah maxafid iyo mucaarad dowladda imika aad u codaysay ama musharax aad u codaysay maxaad doonaysaa inuu bedelo noloshaada maxaad u malaynaysaa inuu ka bedelo waa qof mas'uul qaaday kulli toban ilaahay uma allah ku asturaan leeyahay inuu tallaabo ka sii wanaagsan sii qaado tallaabooyinkii hore la qaaday alxamdulilah rabbil caalamiin magacaygu waa deeqo maxamed cabdi waxaan ku faraxsanay doorashadii waan soo galay doorashada maxaad ka filaysaa wanaag baan ka filayaa insha Allah kii khayr qaba soo baxaya insha Allah wadanku in loo fiicnaado isbedel yimaado madaxweyne cusub yimaadaan jecelnahay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa cabdiqani maxamed muuse geedi anigoo maanta aad baan shucuurtaydu aad buu kacsan tahay waa si nabadgelyo ayaan soo codeynay dadku si nabadgelyo ay u codeynayeen ninba xusbigu doono ayuu codeynayay midna waa laga wada sinaa saddex xusbi in nabadgelyada la ilaaliyo oo isbedel khayr qaba yimaad saakin 6 baan nid safka xaq horaan ka galnay si nabadgelyo ku galnay waxaan ka rajaynayaa in si guulo iyo nabadgelyo noogu dhamaato isbedel khayr qaba inuu yimaado waxaan ka rajaynayaa in waddanka horumariyo iyo dhalinyarada waxaan magacaygu waa Ismaaciil Qowdin Haybe waxa ka socda xaafadda Ayaxtu waxaan wataa kaarkii waxaan soo luganayay 25 kilomitir waxaan ka qaatay iskuulka biyo dhacaga sare marka waxaad ku socotaa halkii aad ka codeyn lahayd halkii aan ka codeyn lahaa nimanka ka socda 25 kilomitir baan nimanka soo luganayay maadaama gaariyaashii maanta la joojiyay marka waxaan doonayaa insha Allah iminka soo codeeyo waxaan rajaynayaa insha Allah saddex madaxweyne kolba kii soo baxa waa Somaliland marka waxaan rajaynayaa insha Allah waxaan iminkaanu maxaad ka rajaynaysaa musharaxa iyo madaxweynaha soo bixi doona inuu naftaada u qabto ama inuu u qabto dalka ama inuu dhalinyarada u qabto maxaad ka rajaynaysaa insha Allah adu waxaan ka rajaynayaa waxyaabo badan waxaan isleeyahay insha Allah isbedel khayr qaba caafimaadka oo kale inuu horumariyo dhalinyarada oo kale xagga biyaha oo kale waxyaabo badan baan doonayay insha Allah inuu xagga Somaliland horumariyo madaxweynaha cusub aan ku socdaa meeshan ka codeynayo fooqa naafada ee magaalada Hargeysa ama loo yaqaan fooqa Jajabka saaka 6 baan soo kalahay hadana imka waan ku socdaa waan ka codeynaya hadii aan la ilaa cid aan u codeynayaana way caddahay si nabadgeliya qof nabadgeliyada carqaladeynaya ma jiro anagu boolis baan qof walba shacab weeyaan marka anaga nabadgeliyada jecel qof walba muwaadin nabadgeliyada uu jecel waan codeynaya waan sabraya inta safka ku jiro nidaamka waan ilaalinaynaa waar dadku waa bislaaday qof walba nidaamka waa ilaalinaya qof walba nidaamka iyo wixii commissionka waa loo hoggaansamay maanta waxaan waqtigeyga u horeeyaa saan u dooran la murashaxa aan ku sheegay ee aan u doortay inuu badbaadin karo wadanka kaasa waqtigeyga ugu badan ku qaadanaya ilaa caawinay hadii ku gaadhiso waa ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu yahay maxamed xasan maxamed kana tirsan degmada Ibraahim Koobura waxaan maanta halkan ku codeynayaa doorashada madaxtooyada dalka maanta ka bilaamatay hadii Allah uu dilo ogolaado oo si samcad iyo sharaf leh u socotay ilaa imika goobtana waa goobta sikada daahir ama 313 la yiraahdo magacaygu waa Cabdisalaan Ibraahim Maxamed doorashadii Somaliland oo si salmiya u socota waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Somaliland oo aan leeyahay insha Allah taala bashbashiyo barwaaqay ugu dhamaanaysa doorashadu waxaan taaganahay goobta daahir oo ay doorashadu si salmiya uga socoto iyadoo saaka 5tii la soo istaagay safafka oo waxaan ku wuri dadku ay aad u xamaasadaysan yihiin ay anigoo Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil oo jooga goobtii codeynta waxaanu gaadhay haddaan leeyahay dadka reer Somaliland guushii ugu weynayd wassalaamu calaykum waraxmatullaahi aniga magacaygu Cabdiraxmaan Maxamed Zaydiriye waxaan maanta ka malaynayaa dhammaan shacabka Somaliland ee guusha gaadhay iyo dhammaan musharaxiinta qaranka ee runtii u loolamaya codbixinta aad iyo runtii u salaamaya waxaan ka salaamay madaxweynaha qaranka Somaliland oo dhammaantood runtii guriga ay soo hooyeen waxaan u soo kalahnay magacayga waxa la bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Ayaan Cali Seraar saaka waxaan u soo kalahnay doorashooyinkii waxaan u nimidnay 4tii subaxnimo ilaa hadda si fiican oo qurux badan marka alxamdulillah ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sidii khayr qaba
sida aad arkaysaan qof kastaaba codkiisa ayuu dhiibtay waxaana uu ku faraxsan yahay inuu codbixintii doorashada uu gutay waxaanay u muuqataa hawsha ilaa hadda inay si bila caqabada u socoto wararka ugu dambeeyay ay soo gaaray xagga commissionkuna waxa ay sheegayaan in ilaa hadda codbixintu ay sidii loogu talagalay u socoto oo aanay jirin wax caqabada guddiga doorashada ayaa iyaguna ka hadlay xaaladda codbixintu saaka ay ku bilaabantay iyo xaaladaha ilaa hadda la soo dirsay codbixinta ilaahayba mahad leh allah mahad leh ilaahay baynu mar kasta u mahadnaqaynaa inoo fududeeyey inay doorashadii inoo qabsoonto codayntii socoto 7 subaxnimo ayay bilaabantay waxay ka bilaabantay waddanka oo dhan minbari galbeed koonfur waqooyi 1642 goobood ee waddanku ka kooban yahay way bilaabantay 22 degmo doorasho 6 gobol doorasho si wanaagsan bay u socotaa hadda waxaanu ka soo baxnay halkii maxay communicationka isgaarsiinta bartii isgaarsiintaanu ka soo baxnay shaqadii aad iyo aad bay u socotaa waa 12kii duhurnimo waxaanay marayaan meel aad iyo aad u wanaagsan oo aan wax looga baqdaa jirin wax xagga amniga haddaynu ka hadalno xagga amnigu meel kasta waa nabad meel kasta nabad baanu ugu tagnay nabad baanay ku socotaa 7 laga bilaabo 5 saacadood ay inoo socotay ilaa 12kii hadda aynu taaganahay waa nabad carrigii waa nabad wax dhibaato inoo yimid dibadii ma jiro waxaanu leenahay ku codeeya nabadgelyo ku codeeya amni ku codeeya safafkooda is ixtiraamtaan ku codeeya dulqaad isu dulqaata wax yar baa inugu hadhay oo aan badnayn 6 saacadood baa inugu hadhay iyo wax aan ka sii badnaynba waxaanu idin leenahay walaalayaal muwaadiniinta Somaliland codbixiyayaasha waad u soo maxayday halkanaad ku soo gaadheen waxaad ka soo qayb gasheen diiwaangelintii waxaad ka soo qayb gasheen kaadh qaybintii kaadharkii waad haysataan hadda waxaad markaa tacabkii badnaayee aad gasheen tacabkii yaanu idinka khasaarin qof kastooba safka soo gal kii aan saaka iman hadda ha soo galo waxaanu doonaynaa qof kasta oo kaar haysta oo codbixiyey inuu codeeyo oo uu ka faa'iideysto fursadda qaaliga oo maanta haysto waa maalin taariikhiya taariikhda Somalilandna ku sundanaan doonta inay tahay wax dhif iyo naadir ah Afrika iyo dawladaha saddexaadba inay u dhacdo doorasho sidan oo kale ah sidan Somaliland doorashada u qabsatay ee ay dadkoo dhani gamacaysa haystaan waa dhif iyo naadir adduunka waanu ducaynaynaa annagu waxaanu ku ducaynaynaa inuu ilaahay nabadgeliyo inuu dhameeyo nabadgeliyo inuu bilaabay nabadgeliyo kulli inuu dhammaan doonta insha Allah biidmillaahi kariim ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad sidaa ku wadaan oo aad gamays qabsataan oo ciidanka amniga ama ciidanka qaran ee kala duwan ee idihagaya ee nidaamka ilaalinaya aad ixtiraamtaan fadlan ixtiraama ciidanka nidaamkay hagayaan weynin safka idin wanaajinayaan si aad dhaqso uga baxdaan oo aad u gudataan dastuurka xaqa dastuuriga ah ee aad leedahay inaad wax doorato iyo in lagu doortaba waa hadday ku soo martay ka faa'iideyso ma dhow intaad odhan lahayd wallaahi madaxweynahaas hadda fuulay ama meesha yimi anigu haddaan kaarka haysan lahaa ama haddaan codayn lahaa waxaan u codayn lahaa hebelka kale imanka ka faa'iideyso u codee madaxweynaha mustaqbalka 5 sanadood ee Somaliland soo socda xukumi doona oo aad ku kalsoon tahay waana idin mahadnaqaynaa saxaafadda iyo dadweynaha iyo codbixiyaasha iyo 3 xisbi qaran iyo 6 murashax aad baan ugu mahadnaqaynaa si ay noogu dulqaateen si ay nala shaqeeyaan mahad baan u wada jeedinaynaa qarankana guud ahaan waxaanu idinka gaarsiinaynaa oo anigoo ka wakiila komishiinaradii qaranka oo hawl qaran ku maqan waxaan idin leeyahay waanu idin mahadnaqaynaa waanaanu idin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal sida xalay toolaba ay shaaciyeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo saraakiisha laamaha amniga
guud ahaanba magaalada Hargeysa waxaa gabi ahaanba la joojiyay gaadiidka dhaqdhaqaaqooda marka laga tago gaadiid kooban oo ay ogolaansho siiyeen guddiga doorashada sida wadada idinka muuqatan dadka oo dhan waxa ay u lugeynayaan goobaha codbixinta kuwa kale waxay ka soo baxeen goobaha codbixinta oo codkooda ay soo dhiibteen taasi ayaana muujinaysa in saxmadii magaalada ay gabi ahaanba ay hoos u dhacday oo dadku lugtooda ay isticmaalayaan ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو عالانكاغو كانباي عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو عالانكاغو كانباي عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عقليقيو قراتكيو قراشد عدونيو ضمير عافي ما تقوى عقليقيو قراتكيو قراتكيو قراشد عدونيو ضمير عافي ما تقوى بولشيهاي كوعانكي بولشيهاي كوعانكي وعلى مساركي عدة دور الليل مسؤول عمامه عدة دور الليل مسؤول عمامه تلبين عمكا هي عمكا وعلى مساركي عدة دور الليل مسؤول عمامه عدة دور الليل مسؤول عمامه تلدين عمكا هي عمكا ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو عالانكاغو كانباي عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو عودكاغيو فرتادو دستوريو الشارع ويان العود كاغا سيلاين علانيو دستوريو الشارع ويان العود كاغا سيلاين عرددا حلكاروا هاي عقيبيو عدود دولة ديديو إسيو كراميو
عذود دولة ديديو إسيو كراميو إسيو كراميو 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 ومدي هاي عقيبيو عذود دولة ديديو إسيو كراميو عذود دولة ديديو إسيو كراميو إسيو كراميو 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 ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو ودرارتي عيديو عرضيو دولكاغيو calankaagu kaadabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado